kulan hawleedkan oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadamaha oo lagu carbinayo xubno ka kala socday garsoorka xeer ilaalinta iyo shaqaalaha maxkamadaha ciidamada qalabka sida soconna doona muddo 3 maalmood ah furitaankiisana ay ka soo qayb galeen wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida hirgelintiisana ay iska kaashadeen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo unugga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland mudane Xuseen Axmed Caydiid ayaa si qoto dheer uga warramay dadaalka xukuumaddu ugu jirto horumarinta xuquuqda aadamaha isagoo wasiirku iftiimiyay waxqabadka wasaaradda cadaaladda ee salka ku haya kobcinta iyo kor u qaadida aqoonta bahda cadaaladda si guul looga gaaro buu yiri adeegyada garsoorka dalka waa waxaan runtii sharaf iyo farxad noo ah inaanu gaarsiino bal tababarada noocaas inaanu maxkamadii kalena aanu ku fidinay xagga ciidamada inoo qaabilsanayd inaanu iyadana ku fidino runtii farxad iyo sharaf iyo guul bay noo noqonaysaa waxaanu ka wada shaqeynaynaa waa cadaalad maxkamadda ciidamadu iyo xeer ilaalintu waxay u dhisan yihiin cadaalad xeerarka waxa loo sameystay in lagu horumariyo cadaaladda waxaan horta ku soo dhawaanaysan tababarka 3 cisho ah iska kaashana sidii aynu aqoonta u horumarin lahayn sharciga iyo xuquuqda aadamaha u horumarin lahayn waxaan ugu kalifay wax badan bahda cadaaladda iyo ka dhaxeeya maxkamadaha ciidamada maxbuuskii baa daynaga dhaxeeya maxbuus baa soo xidhaysaan xabsiga la keenay waa xabsigii caadiga ahaa weeye ee aanu anagu u ahayn line ministeriga u ahayn sida aanu maxbuuska kaleba aanu maxkamadaha u xusuusinayno aanu leenahay maxbuuskaasi wuu ku muddo dhaafay rumaankii maxbuuskaasi aan biil buu in badan sugaayay aanu maxkamadaha u xusuusino de waajib bay nagu noqonaysaa maxbuuskii isla xabsiga ku xidhnaana inaanu maxkamadaha la soo xidhnaano raahno maxbuuskaasi maxkamadda ciidamada u xidhani wuu ku muddo dhaafay hadduu rumaan ahaa weli waqti ma harsan yahay oo ku eegtaa mise way ku muddo dhaaftay waa waxyaalahaanu ilaalino weeye gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland Xasan Aadan Sugulle ayaa soo dhaweeyay kulamada lagu dardargelinayo aqoonta garsoorayaasha dalka ka hawlgala hadii ay tahay kuwa maxkamadaha madaxa bannaan iyo maxkamadaha ciidamada labadaba Mrs Antino oo ahayd sarkaal ka socday unugga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee hirgelisay kulankan ayaa sharaxday ahmiyadda tababarkan ka qaadanaya ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo sida ay muhiim u tahay bay tiri dhaqangelinta qawaaniinta aadamaha si cadaalad ay u helaan Maxamed Ismaaciil Wali agaasimaha waaxda xabsiyada iyo xuquuqda aadamaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ayaa isna ka warramay faa'iidada laga dhaxli karo tababarkan xubnaha qaadanayana la dardaarmay tababarkani muddada uu socdo xubnaha ka qayb qaadanaya ayaa qawaaniin iyo duruus la xidhiidha amuraha garsoorka oo ku qatoma ilaalinta iyo dhowridda xuquuqda aadamaha ee uu sharcigu u siiyay bini'aadamka ku baran doona